qisadii dibiga dahabiga ahaa waa dhacdo weyn oo lagu xusay qur-aanka kariimka ah, gaar ahaan suuratu daah iyo albaqra. Waxaana sameeyey nin la oran jiray Saamiri xilligii Nabi Muuse calayhi salaam uu ka maqnaa qoomkiisii reer bani Israa'iil si uu ugu soo qaado kutubtii Tooraad. Halka ayay ka bilaabanaysaa qisadeena maanta. Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu qoomkiisii reer bani Israa'iil ka soo saaray Masar. Kadibna Eeba ayaa u ballan qaaday inuu sii doono kutubta Tooraad iyo tilmaamo dheeraad ah. Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu u kacay oo aaday buurta Siina muddo 40 habeen. Ka hor inta uusan bixin Nabi Muuse, wuxuu walaalkiisii Nabi Haaruun calayhi salaam ugu dardaarmay inuu shacabkiisa ilaaliyo uuna u xukumo si cadaalad ah. Bixitaankii Nabi Muuse calayhi salaam waxaa fursad u arkay Saamiri oo ahaa nin ka mid ah reer bani Israa'iil amba la noolaa. Muhiimadeena maaha inuu la joogo inuu la noolaa. Muhiimadeena ayaa ah asaga. Saamirigii ayaa arkay dahabkii iyo waxyaalihii qaaliga ahaa ee wateen reer bani Israa'iil, kuwaas oo ay kala soo baxeen Masar. Wuxuuna ka faa'iideystay fursadii maqnaashihii Nabi Muuse calayhi salaam si uu u baadiyeeyo shacabka, kuwaas oo markii horeba ku cusbaa diinta Islaamka. Qaar badan oo ka mid ahna ay weli wateen caabudidii asnaamta. Saamirigii wuxuu guda galay samayntii dibigii dahabiga ah. Wuxuuna shacabka ka codsaday inay keenaan dahabkoodii ay siteen. Wuxuuna ku shubay dab, kadibna wuxuu u ekeysiyey dibi soo saaraya cod. Laga yaabay inuu ku riday wax jawaq soo bixinayo markii hawada ay ku dhacdo. Kadib markii uu sameeyey dibigii, wuxuu shacabkii ku yiri, kani waa ilaahiini iyo ilaahii Nabi Muuse wuuna idinka lumay. isla markiiba dadkii jaahilka ahaa iyo kuwii iimaankoodii daciifka ahaa ayaa rumaystay oo bilaabay inay caabudaan dibigii dahabka ahaa, ayagoo ka tegay diintii Alle oo u keenay Nabi Muuse calayhi salaam. Intii ay ugu guda jireen arrintaas, wuxuu Nabi Haaruun calayhi salaam isku dayay inuu joojiyo. Wuxuuna ku yiri, qoomkaygiiyow waxaad ku fidnoodeen dibigan, rabbigiinnuna waa raxmaanka ee isoo raaca, amarkaygana adeeca. Hase yeeshee way diideen. Qaar baa xitaa isku dayay inay dilaan Nabi Haaruun calayhi salaam, ayagoo ku doodaya inaysan joojin doonin caabudidii dibiga ilaa uu Nabi Muuse soo noqdo. Soo noqoshadii Nabi Muuse calayhi salaam. Markii uu soo noqday Nabi Muuse calayhi salaam, wuxuu arkay qoomkiisii oo caabudayo dibigii dahabiga ahaa. Aad buuna u carooday, wuxuuna walaalkiisii Nabi Haaruun calayhi salaam weydiiyey sababtuu u ogolaaday arrintan foosh xun. Nabi Haaruun calayhi salaam wuxuu u cadeeyey in dadka asaga ay quursadeen ay rabeen inay dilaan xitaa. Kadibna Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu u jeestay Saamirigii, wuxuuna weydiiyey waxa ku kalifay falkan. Saamirigiina wuxuu bixiyey cudurdaar aan macquul ahayn, asagoo sheegay inuu arkay wax aysan dadka arkin. Wuxuuna sheegay inuu ku afuufay ciid ka timid raadkii faraskii Jibriil, taasoo keentay in dabiga uu noolaado uuna soo saaro cod. Laakiin Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu Saamirigii ku hawaaray inuu noloshiisa ku qaato cidlo oo qof walbana uu ka cararo lana yiraahdo ha i taaban. Kadibna arrintaas Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu gubay dibigii, kadibna wuu burburiyey isagoo raaciyay badda, si reer bani Israa'iil u arkaan in ay waxa ay caabudayeen uu yahay ilaah aan waxba iska qaban karin, iska celin karin, daciif ah. Kadibna arrintaas waxaa la faray reer bani Israa'iil inay toobad keenaan. Qaar badan oo ayaga ka mid ahna waxay la kulmeen ciqaab intii ay toobad keenayeen.